doorasho isku sidkan ama oo golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka. haddaba commissionku muddadii ugu dambeysay ee ka dambeysay doorashadii inoo qabsoontay November 2017 waxay soo qabteen ama u qabsoomay shaqooyin aad u baaxad badan. waxaana ka mid ah diyaarinta qorshaha shaqada diiwaangelinta iyo doorashada golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka. laba, diyaarinta xeerarkii doorashooyinka iyo diiwaangelinta kuwaasoo ay ku sameeyeen wax ka bedel, kaabis, isku dhafid 4 xeer oo 4 nuqul ku kala yaalay. ilaahayna inugu guuliyay inaynu ka dhigno hal nuqul oo keliya kaasoo kala ahaa xeerka madaxweynaha ama madaxtooyada doorashada madaxtooyada, xeerka doorashada golaha wakiilada, xeerka doorashada golaha deegaanka iyo xeerka diiwaangelinta codbixiyaasha. taasoo markaanu dhammaystirnay u gudbinay madaxweynaha jamhuuriyadda April 2018 isaguna uu sii gudbiyay golaha wakiilada welina hor yaala golaha wakiilo oo aan la ansixin. waxay komishanka doorashooyinka qaranku la kulmeen daneeyayaasha doorashada ama daneeyayaasha dimuqraadiyadda Somaliland oo kala ah 3 xisbi qaran, ururada bulshada, qaran bixiyaasha iyo xukuumadaba. komishanku wuxuu diyaariyay dhammaan agabyadii oo u diyaara diiwaangelinta ama dib u diiwaangelinta codbixiyaasha lagu sameeyay. wuxuu kor u qaadis iyo tayeyn ku sameeyay qalabkii inoo yaalay kaasoo u diyaara inuu diiwaangelintii codbixiyaasha dib loo furo oo u qaato. haddaba markii uu komishanka doorashooyinka qaranku uu diyaariyay dhammaan qorshe hawleedyadii u yaalay ama hor yaalay waxa ka hor yimi caqabadahaas oo isugu jiray kuwa sharci, kuwa siyaasadeed iyo kuwa dhaqaalaba oo kala ahaa: 1, saami qaybsiga kuraasta golaha wakiilada taasoo ilaa hadda aan la gaadhin xal iyo heshiis midnaba. 2, xeerarkii diiwaangelinta iyo doorashooyinka oo udub dhaxaad u ah qabsoomidda doorashooyinka golaha wakiilada iyo deegaanka isku sidkan oo ilaa hadda aan la ansixin. 3, diiwaangelintii codbixiyaasha oo lafdhabar u ah qabsoomidda doorasho sharciguna dhigayo in doorasho kasta ka hor la sameeyo ama la qabto diiwaangelinta codbixiyaasha oo aan inoo qabsoomin. 4, xisbiga wadani oo ku dhawaaqay bishii March 2018 inuu joojiyay dhammaan wada shaqayntii ka dhaxaysay isaga iyo komishanka doorashooyinka qaranka taasoo caqabad ku noqotay shaqadii komishanka doorashooyinka. 5, wada xaajoodkii u dhaxeeyay 3 xisbi qaran oo iyagana aan ilaa hadda wax xala ama isfahama aan laga gaadhin. 6, miisaaniyaddii lagu geliyay doorashadan isku sidkan ee nagu soo socota oo iyaduna aan weli dhammaystirnayn ama aanan wada haynin. caqabadahaasu waxay suurtagal ka dhigi waayeen in komishanka doorashooyinka qaranku shaqadiisii qabsado isla markaana sidii qorshaha ahaa waddanka ka qabto doorashooyinkii soo socday isku sidkanaa ee dhici lahaa 29 bisha March 2019. waxaanu halkan ku cadaynaynaa maxay shacabweynaha Somaliland dhammaantood inuu jiro ama aynu ku dhaqanno xeerar iyo sharci oo waddan xeer iyo sharci ku socda aynu nahay. xeerarka ku dhisan yahay komishanka doorashooyinka qarankuna waa xeer number 20 oo la soo saaray 2001 kaabisna aynu ku sameynay 2017 haddana hor yaalla isagoo aynu isku dhafid, kaabis iyo isu keenid baynu ku sameynay kaasoo qodobkiisa 9aad firqadiisa 2
ay sheegayso sidan komishanka doorashooyinka qaranku waa inay cayimaan waqtiga doorashadu qabsoomayso 120 cisho ka hor waqtiga doorashadu dhacayso ama loo asteeyey madaxweynahana u gudbiyaan si uu ugu soo saaro digreeto official ah rasmi ah muddo 15 cisho gudahooda taasoo ku beegan 29 bisha March 2019 haddaba komishanka doorashooyinka qaranku wuxuu u baahan yahay inuu shaqeeyo haddii la xalilo arrimaha inuu hor yaalla 10 bilood oo xidhiidha oo aan kala go' lahayn ugu yaraan si ay u qabtaan doorasho ay ka bilaabayso marka la xaliyo caqabadaha inuu hor yaalla komishanku wuxuu caddaynayaa duruufaha uu soo sheegay ee jira awadeed inay doorashooyinkii isku sidkanaa ee golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanku ee aanay qabsoomeyn waqtigii loo cayimay oo ah ama ku beegan 29 March 2019 warqadda cayimaadda ah eanu ku cayimayno sharciyan waxaan u gudbinaynaa maanta oo bisha 28 madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland